qisadii asxaabul kahfi waxay ahaayeen dhalinyaro alla rumaysay isla markaana ka soo jeeda qoysas ladan. hase ahaatee waxay wacd ku mareen inay magaalada isaga baxaan, waxayna ku ballameen duleedka magaalada oo ahayd meesha haatan loo yaqaano godkii asxaabul kahfi. si kastaba ha ahaatee taariikhyahanada islaamka ayaa isku khilaafay tiradooda. qaar ayaa sheegay inay ahaayeen 3 iyo eygooda, 5 iyo eygooda, 7 iyo eygooda. dhammaantooda waa malamaleeyeen, hase yeeshee xaqiiqda alla uun baa og. eyga inkastoo yahay nijaas, haddana qur-aanka kariimka ayaa lagu xusay maadaama uu la saaxiibay dhalinyaro ahlu iimaan ah, wuxuuna waardiye ka ahaa iridka hore ee godka laga soo galo. halkaas ayuuna dhalinyaradaasi ka ilaalinayay. markii aad kor ka eegto dhalinyarada waxaad u moodaa inay hurdayaan, balse waa kuwo soo jeeda. qoraxda ayaa loo leeliyey oo subaxdii ayay waxay u ahayd markaas diirimaada, galabtiina diirimaada, siday sheegaan culummada cilmu nafsiga. qoraxda subaxdii galabtii waa caafimaada. sidoo kale allah ayaa ku galadaystay wiilashaasi in la gedgediyo oo dhinacba mar loo gediyo, maadaama ay jiifeen 309 maalmood. muddada ay godka ku jireen dhalinyaradaas ayaa ahayd 309 maalin. sida ku muuqato godka waxaa laga soo galaa iriddaasina waxaa toddobaadkiiba mar la furaa sida dadku ay u soo booqdaan dhalinyaradii iyo raadadkii ay ka tageen. macnaha raqiim waa qorid oo magacyadooda ayaa lagu qoray dhagxaan dushood si loo kaydiyo. isla magaalada raqiim waxaa maanta loo yaqaanaa dalka Jordan ama Ordan. fadlan haddii ay ku xiiso gelisay warbixintan, subscribe saar oo asxaabtaada la wadaag.